munaasabadani oo ahayd mid ay maamulka dugsiyada Today abaalmarina ku guddoonsinayeen ardayda ugu sarreysay imtixaankii ay qaadeen maamulka dugsigaasi waxaana munaasabada ka soo qayb galay waalidiin macallimiin siyaasiyiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxa halka ka hadlay maamulaha dugsiyada Today oo ka warramay marxaladihii kala duwan ee uu soo maray dugsigaasi arday waliba wixii uu goostay buu helaa oo ardaygan dadaalin marbuu dabinta ruuga waqtigu dayacay buu dib xasuustaa ardaynimo waynu soo wada marnay ardaynimaduna waxay u baahan tahay in laga qayb qaato waalid iskuul iyo markaasi dawladba oo la kobciyo waana wixii u soo koreeyay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa xusid mudan oo dugsiyada kale kaga duwan yahay in aanu ahayn dugsi uu leeyahay qof kaliya ee uu yahay dugsi uu leeyahay bulsho ay wada leedahay bulshadaasi oo ah macallimiin iyo markaasi ganacsatada ay wada leedahay dugsigan oo runtii ka qayb qaadatay dhismihiisii iyo aasaasidiisiiba waxa xusid mudan oo aan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo maanta macallimiintii sharafta lahayd ee ku midowday aasaasida iyo taabagelinta dugsigan ee dhidibada u taagtay oo ka koobnaa 13 macallin iyo halgamaagi weynaa ee dugsigan la'aantii aanu noo suurta gasheen ee noo hirgeliyay dhismihii koowaad ee dugsigan uu ku aasaasmo ilaahayna ha ka raalli ahaado aabbo xaaji mawlidooda waa bulaale oo runtii aasaasihii buqcadii koowaad ee laga aasaasay dugsiga sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardaydoodu wax ka barata dugsigaas iyo marti sharaf kale waxayna yiraahdeen waxaan u hambalyeeyaa ardayda dugsiga ama dugsiyada Today oo la hambalyo anigoo ugu hambalyeeyaa waxbarashadooda heerka soo socotay iyo heerka ay maanta marayaan iyo heerka insha Allah bismillaahi kariim ay hore ugu sii wadi doonaan أولاً waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta iyo maamulka Today Schools oo tacabka ay galiyeen ummadda dhan ee ay hayaan ay wax barayaan aad ka aragto halka maanta ardayda fadhida dhinaca bidixdeeda ardayda fadhiya waa arday runtii aad iyo aad u daayar akhlaaqdooda iyo sida ay u fadhiyaan iyo edabtooda markaad eegto waxaad garanaysaa tacabka ku jira iyo tusaalaha iyo tarbiyada macallimiinta marka waxaan leeyahay jazakumullahu khayr nimanku waa kii maamuluhu ka warramay iskuul halku ka soo kacay halku maanta marayo aad iyo aad dee waxaasoo dhan waxa weeye waa dadaalka geliyey waxa la yidhi geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlay afka saddexda xisbi qaran waxaa halkan aanu ka dhiirigelinaynaa oo aan isbarbar taagaynaa macadka Today Schools oo maanta dhiirigelin u samaynaya ardaydooda heerarka kala duwan waxaan leeyahay hambalyo waxaan aad uga xumahay in wasaaradda waxbarashadu ay ciddii talada ka go'aysay ay ka maqan tahay meesha maanta oo kale may ahayn inay goobahan oo kale ka maqnaato wasaaradda waxbarashadu waxay inay soo fadhiistaan oo ardayda dhiirigeliyaan ugu horreyn waxaan halkan uga hambalyaynayaa ardayda quruxda badan leh ee maanta hortayda fadhida ee mutaystay inay gutaan oo helaan abaalmarinaha maanta aynu goobjooga ka wada nahay aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa waxaan kaloo hambalyaynayaa waalidiintii ku tabcay ee garab taagnaa ee soo gaadhsiiyey inay maanta u qabsoonto mid ka mid ah yoolalka nolosha ka mid ah oo ah xayndaabka lagaga gudbo aqoon la'aanta una oggolaaday inay ubadkoodu wax bartaan marka ugu horeysa Allah mahadle iskugu keenay xafladan aadka u qurux badan imika intaan halkaa fadhiyay waxaan inoo Today dugsigan waxaan u bixinay ugu dambeyn waxa halka abaalmarina lagu guddoonsiiyay ardaydii ugu sarreeyay imtixaanaadka ay qaadeen maamulka dugsiyadaasi iyo waliba macallimiintii ugu wanaagsanay dugsigaasi sanadkan Axmed Maxamuud Cumar Axmed Dayax telefishinka caalamiga bulsho magaalada